sheekh su'aal kale oo la soo diyaay waxa uu dhacaysaa sidatan sheekh waan ku salaamay nin dhalinyaro ayaan ahay muddo dheer ayaan siigeysanayay waxaan isku dayay in aan joojiyo laakiin isbuuc ka bacdi ama ka yar ayaan falkayga siigeysiga ku noqday niyajab ayaa ugu dhacay maxaa yeelay biyaha iga imaanaya markaan siigeysto waa daciif waxaana aaminay in aan ilmo dhaleynin marka sheekh niyajab ayaa ay haysta maxaad igu la talinaysaa alxamdulilah horta mas'alada siigeysiga markay culimmadu ka hadlayaan ama atibada iyo dhakhaatiirtu ay ka hadlayaan duruuftan ku haysata iyadaa ka mida waxa sababa qofku jinsi ahaan iyo shahwa ahaan inuu daciifo qaabo badan bay u daciifisaayo mar tanaad sheeganaysay keentaa mar waxay keentaa inuu waqti dheer qofku biyaha shahwada xajin kari waayo waqtigii la rabay iyo meeshii la rabay ku simi waayo ay qodba si degdeg kaga timaaday keentaa waxay keentaa xubinka raganimada taranku inuu daciifay keentaa waa asbaabta la leeyahay waxaan iska daayay saas darteed qofkan saddex qodob baan kula talin lahaa qodobka koobaad horta jooji wixii horena ka soo toobadkeen ilaahayna istighfaar iyo dambi dhaaf weydiiso waa tallaabada koobaad tallaabada labaad waxaad qaadataa cilaaj iyo dawooyinka cuntada la cuno ama dawooyinka fiitamiinaadka dadku ay qaataan qayb waxaa jira jirka gaar ahaan hormoonada shahwada la xiriira qayb xoojisaa jirta qaybahaana qaado qodobka saddexaadi shakiga iyo waswaas gorad waswaasta maadan gaadhin guurka marka la guursado rag iyo dumarka ilaahay soo abuurayna ay gees isula baxaan waxay leedahay shucuur iyo dareen wax kiciya oo awood aan jirin dhaliyay leedahay awoodda dhalatana sideedaba qofku niyadiisa ay ku xiran tahay intaa waswaaska iska dayso xilligaad shakin lahayd maadan gaadhin sida ugu dhaqsaha badan tanna isaga daa guur xalaalana u raadso oo haddii aad dabac iyo gabar ka cabsato kuwii garoobka ahaabaa joogoo badane mid garooba raadso waxaan rajaynayaa haddaad waxaana iska dayso waxyaabaha muqawiyaadka ay xoogeeyee taakuleeyana gaar ahaan kuwa aan dawooyinka kimikaalka ahayne herbaliska la yidhaahdo oo kaleeto iyo fiitamiinaadka iyo cuntooyinka aad qaadato guursatana inaad caqabada gudbaysaan rajaynayaa wabillahi towfiiq sheekh